maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo dhabarka xijiyay UPD kuna dhawaaqay go'aan aan farxad gelin fil Soomaaliya kulankii iswoon iyo rooble warbixinta aynu ka helnay iyo sidoo kale sababta maxamed xuseen rooble oo soo saaray go'aan aan farxad gelin madaxweyne xasan iyo UPD muuqaalkan ayaan ku faahfaahin doonaa ammaanka fil Soomaaliya la adkeeyay diyaarado iyo ciidamo horle oo lagu kordhiyay kuwaas oo dulhay ahaabaya xarunta fil Soomaaliya si loo sugo ammaanka madaxtooyada xilli madaxweynaha Turkiga lagu wado inuu soo gaaro Soomaaliya ciidankii ugu xoogana oo tababar loogu soo xiray xerada Turkisom ee magaalada Muqdisho mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ka qayb galay waxaan sidoo kale eegi doonaa Cali Guudlaawe ma waxa uu ku biiray garabka Axmedoobiye Saciid Cabdullaahi Dani muxuu yahay warka ka soo yeeray Hirshabeelle ee ku saabsan inta dagaalka shabaab uu ka soconayo Hirshabeelle in doorasho laga qaban karo waa labada bisha Febraayo 2025 axad qodobkeena koobaad ayaan ku bilaabaya daawadayaal soo dhawaad ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble miyaa dhabarka xijiyay fil Soomaaliya rooble hadal haynta ugu xoogan waa inuu musharax u yahay madaxweynaha Soomaaliya sida la aaminsan yahay musharaxnimadiisa ayaa lagu sheegay inaysan ku farxin fil Soomaaliya fariinta uu soo saaray iyo tallaabooyinka uu qaaday sida ay muujinayaan wararka hoose ee uu helayo Suldaanka TV sida aan xogta ku helnay maxamed xuseen rooble kulan la qaatay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Iswon ayaa qoraalka uu soo saaray wuxuu ku sheegay doorasho wadar ogola waqtigeeda ku dhacda raali laga wada yahay inay ku taageerayaan in la qabto dalkaana ay ka dhac wuxuu meesha ka saaray guud ahaanba doorashadii qofkii codka ee loo sacabatumayay arintaas ayaana ka dhigan fariin xanuunkeeda leh oo aan farxad gelin fil Soomaaliya maxamed xuseen rooble oo magaalada Muqdisho kulan gaar ah kula qaatay ergeyga ku meel gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya James Iswon kadib markii ergeygu booqasho ku tagay guriga rooble oo ka degan yahay magaalada Muqdisho sidaan warbixinta ku helnay rooble wuxuu soo qabtay doorashadii ugu dagaalka badneed ugu adkeed uguna xasaasisanada ka dhacday Soomaaliya 2022 wana sababaha imika looga talagelinayo xalka doorashada arrimaha siyaasadda labada mas'uul ayaa salaan kadib iska xog wareystay marxaladda guud ee dalka arrimaha muhiimka ah iyo sidoo kale in la helo wadar ogol siyaasadeed oo lagu galo doorashada rooble iyo Iswon ayaa sidoo kale soo qaaday muhiimadda loo qabo sidii dalkan looga hirgelin lahaa doorasho xor ah oo xalaal ah isla markaana loo wada dhan yahay kuna qabsoonta waqtigeeda raalina lagu wada yahay sidoo ku xuso qoraalkiisa waxa guriga igu soo booqday ergeyga gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswon waxaan fursad u helay inaan iska xog wareysano marxaladda guud ee dalka uu marayo sidii la isaga kaasho lahaa horumarinta arrimaha muhiimka ah dalka ee hor yaalla ayuu hadalkiisa ku daray Master Roble kulankan ayaa ku soo aaday xilli xasaasiya isla markaana ay taagan tahay xiisad culus oo ka dhalatay hanaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka oo ay isku hayaan fil Soomaaliya iyo qaar ka mid hogaamiyaasha gobolada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee danta kala arrimaha doorashada Soomaaliya ayaa markastoo la gaaray xilliga kala guurka waxa la isku qabtaa arrimaha doorashooyinka waxaana hadda dooda keenay qof iyo cod doorasho ah oo ay qorsheynayso fil Soomaaliya dalka inay ka qabato dawladda hogaamiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Master Roble iyo James Iswon ayaa si ka duwan sida aan warbixinta ku helnay ee uga hadlay arrimaha fil Soomaaliya ee la filay Iswon xilliga uu joogay iyo Roble xilliga uu joogay doorashada ugu adkayd dalka ka dhacday waxayna imika iska wareysanayaan arrimaha ku saabsan sida arrimahaas loo badbaadi karo go'aan looga gaari karo sida ay ku waramayaan macluumaadka hoose ee uu helayo Suldaanka TV lama oga fariimaha fil Soomaaliya arintaas ay uga jawaabtay iyo sida ay u aragto dhamaantood qodobkaasi wuxuu ku soo kordha waan eegi doonaa wararkeena kale ayaan eegaynaa daawadayaal ee ku saabsan arrimaha dalka iyo guud ahaan xaaladda Soomaaliya
ammaanka filla Soomaaliya ayaa la adkeeyay kadib markii qalqal xoogan uu soo wajahay ammaanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud saddexdii habeen ee la soo dhaafay diyaaradaha daroonka lagu dul arka filla Soomaaliya ayaana muujiyay walaaca madaxtooyadu ay ka qabto arrimaha ku saabsan ammaanka dalka gaar ahaan ammaanka madaxweynaha sidaan ku helnay warbixino hoose ee soo baxaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay sida warbixintu xusayso walaac ku saabsan ammaankiisa iyo inaysan suurtagal ahayn fariimaha laga bixiyay diyaaradaha lagu arkay dusha filla Soomaaliya dusheeda inay noqon karaan kuwa argagixisada u adeegaya oo dhibaato markaasi ku sameey kara hoggaanka dalka ugu sarreeya sida ay muujinayaan wararka hoose soo baxay filla Soomaaliya ayaa qaada tallaabooyin ku saabsan in diyaarado cusub lagu kordhiyo ammaanka madaxweynaha in sidoo kale ciidamo cusub lagu kordhiyo baraha control ee filla Soomaaliya in qalab kala duwan la keenay madaxtooyada kaasoo lagu sheegay in lagu ilaalinayo diyaaradaha dul heehaabaya filla Soomaaliya ila walaadi xilkas ayaa warbaahinta u sheegay in diyaaradaha daroonka ah saddex habeen oo isku xigta min laba mar ay ku soo laabteen hawada madaxtooyada cabsi weyn ayaa la dareemay waxana laga shakiyay in diyaaradahan ay sidaan qaraxyo ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya ayaana la sheegay inay qoryaha dhishikada ku garaaceen daroonkan hawada lagu arkay balse ma la soo ridin mana gaari wax yeelo ma jiro ilaa iyo had war ka soo baxay dawladda dhexe Soomaaliya ku aadan diyaaradahaas oo shaki geliyay dadka reer Muqdisho ammaanka caasimadda gaar ahaan ammaanka fillad dhawaan waxa soo baxay digniinaha sheegaya inay suurtagal tahay in kooxaha argagixisada adeegsan karaan diyaarado daroon ah oo qaraxyo sida lagu sheegay warbixino ka soo baxay hay'adaha caalamiga ee degan xarada xalana ee magaalada Muqdisho maalmo ka hor ayay ahayd markii ay Puntland soo riday diyaarado qaraxyo laga soo buuxiyay oo kooxda Daesh ay la beegsadeen ciidanka Puntland ee ku sugan buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari oo duqeymo xoogan xalay ka dhaceen laguna dilo horjoogayaal iyo maleeshiya qodobkaasi wixii ku soo kordha waan idin soo gudbin doonaa oo dib ayaan ka faahfaahin doonaa wararkan kale aynu eegin ciidankii ugu xooganaa ayaa tababar loogu soo xiray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ciidankan ayaa ah guutooyno cusub oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan ammaanka dalka ilaa 6000 ilaa 7000 ayay ciidankan u dhaxeeyaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaana ka qayb galay cutubyadan ka tirsan ciidanka sida gaarka u tababaran ee gorgor oo lagu dhaariyay xerada Turkisom kadib markii ay la qalin jibiyeen abay ka qalin jibiyeen dugsiga tababarada ciidamada Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga iyo taliyaha militariga dalka Turkiga ciidanka militariga ayaa dhamaantood ka qayb galay kulankaas aan ilaad xerada ay ciidanku ku qalin jibiyeen waxana ciidankan lagu sheegay inay ahaayeen ciidan nooc cusub aba ciidankii ugu badnaa oo mar qura tababar loo soo xiro Xamse Barre ayaana qodbad ka jeediyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda oo ka qayb galay qalin jibinta ciidamadan ayaa sidoo kale loo soo xiray tababar adag oo muddo uga socda xerada Turkisom Xamse Barre waxa uu sheegay in ciidamadan looga fadhiyo sida ay cadawga uga difaaci lahayn Soomaaliya intii ay socoto munaasabada dhaarta ayaa ciidanku waxay soo bandhigeen dowlatus gaardis gaadaka ciyaar ka turjumaya tayada iyo xirfadda sare ee lagu carbiyo kuwaas oo loo dhaariyay inay ka qayb qaataan hoggaanka dalka dagaalada dalka iyo sidoo kale argagixisada darar Xamse ayaa xuseen qalabaynta ciidanka gorgor ay tahay astaan muujinaysa horumarka iyo tayaynta ciidanka qalabka sida isaga oo cadeey in laga sugayo sidii ay amniga dalka ula wareegi lahaayeen marka ay baxaan ciidanka midowga Afrika ee awsam kumaandooska gorgor waa ciidan lagu han weyn yahay oo lagu doonayo inay lafdhabar u noqdaan geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira cadawga anigoo og in aad tihiin ciidan sharaf badan dhaqan wanaagsan geesiyaal ah runtii shacabka Soomaaliyeed waxay daga doonayaan gees ilaa ka gees in hanataan ammaanka Soomaaliya ayuu yiri Xamse Cabdi Barre wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga taliyaha militariga dalka Turkiga saraakiil ciidan
iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay dhoolatuska iyo gaadaka ciyaarka ciidankan ay ku soo bandhigeen Turkisom halkaas oo noqotay xerada ugu weyn ee Turkigu uu ku dhiso ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya 6,000 ilaa 7,000 ayay ciidankan u dhaxayaan waana nambarkii ugu weyn oo marqura loo soo xiro tababar taas ayaana ka dhigan inay jiraan isku dayo iyo tallaabooyin dhaxalgala sida muujinayaan xogaha soo baxay Hirshabeelle ma waxay ku beertay waa qodobkeen ugu dambeey afraad ma waxay ku beertay maamulada Jubbaland iyo Puntland ee xiriirka u jaray dawladda dhexe Soomaaliya muxuu warka ka soo baxay maamulka Cali Guudlaawe ee fadhiidka ah ee ku saabsan inaysan doorasho ka dhici karin Hirshabeelle haddii dagaalkan aan la joojin soconay had wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Daahir Guura Karoore oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Hirshabeelle dagaal iyo doorasho aysan xamili karin xilligan mid ay joojinayaanna ay ka fakirayaan in mid la joojiyo in doorashada la galo iyo in dagaalka la joojiyo wasiirkan oo warbaahinta la hadlay ayaa la weydiiyay doorashada saydu qabanaysaan wuxuuna ku jawaabay inagu dagaal iyo doorasho ma xamili karno mid ayaan qaadanaynaa waxayna u badan tahay doorashada in la jooji doono oo maamulkeenu yani haddii dagaalku daba dheeraado suurtagal ma noqonaysa ayuu yiri in doorasho laga qabtay Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa muddooyinkii dambe lagu xamanayay inuu ka xarag furto filla Soomaaliya kaliyana ay u dhimantahay inuu ku dhawaaqo go'aankiisa ku saabsan inuu xiriirka u jaro dawladda dhexe Soomaaliya dad badan ayaa aaminsan haddii Guudlaawe oo 90 kiiloomitir Muqdisho u jira oo xiriirka u jaro dawladda dhexe Soomaaliya maxay sameynayaan lafta garan iyo qorqor waa su'aalaha taagan oo la isweydiinay Shariif Sheekh Axmed madaxweyne hore Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay inuu si toos ugu daaban yahay maamulka Cali Guudlaawe ee Hirshabeelle waana sababaha ugu waaweyn ee loo nisbaynayo in Cali Guudlaawe uu leeyahay xiriirka ayaan u jarayaa filla Soomaaliya nala wadaag aragtida oo qaybta commenting noogu soo qor qaybtan halkan ayaan ku soo gabagabeynaya daawade nabadgelyo